gudoomiyaha gobolka awdal taliyaha guud ee ciidanka asluubta isuduwaha wasaaradda cadaaladda mas'uuliyiinta kale saxaafadda barakaysan ee hawshan inoo daadihinaysa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farxad weyn bay noo tahay maanta jeelkan Boorame oo muddo dhisnaa hase ahaatee dusha ay kaga wareegsan yihiin guryo shiciba oo dhibaato weyn ay kala kulmi jirtay ciidanka markuu gudanayo waajibaadkiisa inaynu maanta dhagax dhignay oo bilownay oo cagaftii ku jirto oo mas'uuliyiintu gobolku joogto oo taliyihii guud ee ciidanku iyo saraakiishiisaba joogaan oo aynu maanta dhagax dhignay inuu yeesho dayrka cabirkiisa hadda uu taliyuu sheegay kaasoo wax weyn ka tari doona waajibaadkii ciidanka uu gudanayay daryeelkii maxaabiista wax weyn ka tari doona waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo go'aan iyo talaba isugu daray inay jeelasha Soomaaliland inay la noqdaan kuwa caalamka waa ogtihiin jeelashoonu xilligii hore waa yaraayeen laakiin maanta 15 jeel bay marayaan maxaa yeelay bulshadii baa ballaaranaysa dadkii baa ku soo xoroonaya magaalooyinka dunuubtii baa badanaysa sidaa daraadeed inay tiradii hore ka bataan tayadooduna ay jeelashu ka bataan taas weeye go'aanka iyo talada madaxweynaha qaranka iyo wasaarad ahaan iyo ka qaran ahaan waa ogtihiin hore waxa u dhamaaday jeelkii Burco oo iminka maanta si casri ah loo dhisay waxa gabagaboobay iminka jeelkii Manjacaseeye waxa iminka dhamaystirmay Gabiley waxa hore u dhismay Baki waxa gabagaba hore u dhamaa iminka maanta lagu shaqeynaya jeelkii Hargeysa arintaas oo dhammaan ay xukuumadda qaranka Soomaaliya ay fulisay iyadoo oo kuwa kalena aynu ku dadaalayno inaynu mar walba isugu darno dhisme iyo dayactir hadii Ilaahay ka dhigo waxaynu madaxweynaha qaranka uga mahad celinaynaa talaabadii iyo go'aankii uu qaatay maanta aynu halkan inaguna ka dhagax dhigayno inagoo fulinayna go'aankii madaxweynaha iyo soo jeedintii taliyaha ciidanka asluubta oo mar walba ka wasaarad ahaan iyo madaxtooyadaba u soo bandhiga hadba baahida ciidanku halkay marayso wixii aynu qabanay iyo waxa ay haboon tahay in la qabto waxaan baraarujin lahaa bulshadeennu in badan iyo ganacsatadeennu ma oga muhiimadda ay jeelashu inoo leeyihiin waxa laga yaabaa saaka jeelka Boorame waxa ku jira tiro maxaabiis oo badan waxa laga yaabaa inay gobolada oo dhan ka kooban yihiin waxa laga yaabaa intaas soo dambe inay soo galeen mid waalid caasiya mid crime dambiye waaweyn u xidhan oo dila mid tuuga u xidhan mid dhaqan xumo u xidhan mid kufsi sameeyay sidaa daraadeed waxaynu bulshadeena ku baraarujinaynaa inay qayb ka qaataan dhismaha iyo dayactirka iyo horumarinta iyo ogaanshaha jeelalka wax ka qabadkooda baahiyahooda inay ku baraarugsanaadaan oo mar walba kii caafimaad ahaan wax uga qabanaya kii dhismo ahaan wax ku daraya kii macallinimo iyo cilmi kaga qayb qaadanayaba inay bulshadeenu ku baraarugsanaato inay jeelasheenu muhiim qaranka halbowle u yihiin oo ay ku jiraan oo inaka haya dad badan oo wadanka dunuub ka soo galay ama dabadiisa ka soo galay oo aan aabbuhu inanka yar ee waalid caasiga ku noqday 6 saac kuma hayn karo laakiin halka waxa laga yaabaa in sanawaad lagu hayo marka qodobkiisa la waafajiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo xilli hore runtii nagu sii sugay oo sii diyaar garoobay oo isagoo waliba runtii hawlo kale lahaa waxaan runtii ugu mahad celinaynaa dhammaan saxaafadda iyo mas'uuliyiinta kale iyo isuduwaha cadaaladda sida gobol ahaanba heegan loogu yahay inuu saaka jeelkan dayrkiisan muhiimka ah in la dhagax dhigo oo uu qabsoomo isagoo dhawaan bilaabmi doona 48 saac soo dhowna insha Allah ta'ala isagoo dhisbihiisu uu bilaabmi doona waxaan baraarujinaynaa dadka jaarka la inay ilaaliyaan oo dayrka runtii ay dhowrtaan la wada dhowrto in laga taxadiro in laga fogaado xeryaha jeelasha laga fogaado maadaama ay maxaabiis ku jirto oo falal ka iman karaan in laga fogaado jeelasha gobolka Awdal iyo gobolada kaleba
fariintaynu faraynaa waxa weeye in laga fogaado xeryaha ciidamada iyo jeelasha dhulka ay ciidanku waajibaadkiisa qaran ku gudanayo aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu